Assalaamu calaykum dhammaan asxaabta. Waa mar kale iyo kanaalka Iftiinshe. Muuqaalkan waxaan ku sharaxi doonaa filim gaaban oo Japanese ah oo logic ah oo lagu magacaabo Chess. Soo dhawaada oo la socda. Bilowga filimka, nin haysta horyaalka adduunka ee ciyaarta loo yaqaano Chester oo lagu magacaabo Akira Kato ayaa la ciyaaraya ciyaarta Chester computer lagu magacaabo Super Blue oo yaala meel carwo ah. Maskaxda Akira waxa ay xisaabin kartaa 3 dhaqdhaqaaq ilbiriqsigii, halka Super Blue uu xisaabin karo ilaa 200 oo milyan oo dhaqdhaqaaq ilbiriqsigiiba. Jaaniska uu ku guulaysan karo Akira waa mid aad u hooseeya, laakiin haddii uu guul daraysto wuxuu noqon doonaa ciyaaryahankii ugu horreeyay ee taariikhda ku guul daraysta kombiyuutarkan. Ciyaarta ayaa si xiiso leh u sii soconaysa, waxaana muuqanaysa in laga sii badinayo. Ugu dambaysta waxa uu tuurayaa boqorkiisii isaga oo aqbalaya guuldarrada. Qolku waa aamusan yahay oo qofna ma rumaysan karo in ciyaaryahanka adduunka ugu tayada badan oo aan weligii hal kulan laga badin uu kombiyuutar ka badiyey. Akira waa uu fadhiyaa isaga oo khajilsan oo garan la sida ay wax u dhaceen. Ninka ciyaarta martigeliyey ayaa ku jeesjeesaya iyada oo tarabuunkuna ay ku qoslayaan, suxufiyiintuna ay sawirro la boobayaan. Akira oo xanaaqsan ayaa laba u kala jabinaya looxii lagu ciyaarayay Chester. 3 sano ayaa ka soo wareegtay dhacdadan. Ciyaartaas kadibna Akira waxa uu joojiyey ciyaarta Chester gebi ahaanteedba. Mana jirin qof arkay ilaa waqtigaas halka uu ku sugan yahay. Muuqaalka soo socda ayaana tusaya dad badan oo guri la'aan ah oo jiifa wadada dhinaceeda aroornimo qabow badan jiro. Mid ka mid ahina waa Akira oo lacagtiisii oo dhan ku dhameeyay qaylaad iyo khamaar oo hadda ku nool wadooyinka. Baabuur qurux badan ayaa soo ag istaagaya, waxaana ka soo degaya 2 nin oo suud madow xidhan. Waxayna xoog ku saarayaan gaadhiga Akira oo waa ay kaxaynayaan. Waxaa la geynayaa qasri weyn halkaas oo uu ku soo dhaweynayo oday maalqabeen ahi. Odaygii ayaa u sheegaya Akira inuu si fiican u garanayo, taas oo ka yaabinaysa. Waayo waxa uu hore u bedelay magaciisa iyo aqoonsigiisa si aan cidiba u garan. Marka uu Akira wax ka weydiiyey cidda uu yahayna, waxa uu u sheegayaa in aanay hadda muhiim ahayn. oo kaliya waxa uu rabaa inuu ciyaar chess la ciyaaro. Waxa uu daaha ka qaadayaa chessboard miiska saaran. Akira ayaa ka cudur daaranaya ciyaartaas, laakiin runtu waxa ay tahay in ka fikirka shaxda iyo aragtideedaba uu ku xanuunsanayo, oo waa uu ka sii jeesanaya oo ma awoodo xataa inuu soo eego. Odaygu waxa uu u sheegayaa in ay kaga khasaartay lacag aad u badan oo sharad ahi kulankii ugu dambeeyay ee Akira. maadaama uu hadda aanu haysan wax lacag ahna, odaygu waxa uu ka doonayaa inuu la ciyaaro ciyaar si uu ugu magdhabo khasaarahaas. Si uu xaaladan uga baxsadana, waxa uu si badheedh ah ugu sheegay in aanu rabin inuu ciyaaro Chester. Odaygii ayaa kor u qaadaya boqorka Akira isagoo u sheegaya inuu guul daraystay isagoo aan xitaa ciyaarinba. Tani waxa ay xasuusinaysaa Akira guuldaradii ugu dambeysay, taas oo ka cadhaysiinaysa. Wuxuuna ku qaylinayaa ka joog isaga oo ka codsaday inuu hore ugu dhaqaajiyo askarigiisa. Odaygii isaga oo ku faraxsan inuu ugu dambeyntii ka dhaadhiciyey Akira inuu la ciyaaro, ayuu isna markiisa ciyaaraya. Si kastaba ha ahaatee, Akira waxa uu diidayaa inuu soo jeesto ama uu taabto shaxda. Isagoo xataa aan fiirin ayuu odayga u sheegayaa inuu u guuro ama u raro dhammaan ciidamadiisa, isagoo ku kalsoon inuu guulaysan doono ciyaarta. Kadib waxaa la ina tusayaa inuu odaygu xidhan yahay sameecad oo uu qof u soo yeedhinayo sida uu u ciyaarayo. Akira waxa uu u dhaqaaqayaa dhanka daaqadda, halkaasoo uu ku arkayo 2 kooxood oo rag ah oo kala xidhan dhar cad iyo dhar madow oo iska soo horjeeda. Qaabka ay u taagan yihiinna ay la mid tahay qaabka shaxda ama chestan ay hadda ciyaarayaan. Odayga ayaa ciyaarta ku dhex dilaya mid ka mid ah ciidamadii Akira, kadibna ninkii taagnaa godka laga dilay Akira ayaa isna midi la gelinaya oo la dilaya. Akira isaga oo naxsan ayuu weydiinayaa odaygii in ay waxan yihiin kaftan iyo in kale. Odaygii waxa uu u sheegayaa in waxan yihiin dhagaxaanta Chester oo kaliya, sidaa darteed aanu u murugoonin dhimashada askarigaas. Akira hoos ayuu u degayaa si uu u soo hubiyo, wuxuuna arkayaa ninkii oo dhulka jiifa, halka nimankii kale ay u taagan yihiin sidii shaxda Chester oo kale. Mididii ayuu ka soo saarayaa, wuxuuna arkay inuu weli nool yahay. Isaga oo ninkii geeri qarka u saaran ayuu isaga oo dhoolla cadaynaya weydiinayaa Akira godka xiga ee uu ka guuri doono, kadibna wuu dhimanayaa. Ciyaartoydii kale ee agtiisa taagnaa ayaa iska tegaya ama dhaqaaqaya isaga oo mididii gacanta ku haysta oo meydna dul taagan. Gabadh wadada maraysay ayaa aragtay oo u qaadatay inuu isagu ninka dilay, laakiin Akira oo naxsan ayaa ku qaylinaya in aanu isagu dilin. Muuqaalka xiga, Akira waxa uu la kulmayaa dhakhtarkiisii hore oo lagu magacaabo Shiichi Tomoda. Dhakhtarku waxa uu la yaabayaa halka uu sannadahaas oo dhan ku maqnaa, waayo isaga iyo xaaska Akira oo lagu magacaabo Kumaketo
waxa ay ka raadiyeen meel walba 3 sano ee lasoo dhaafay. Guuldaradii ka soo gaadhay ciyaartii Super Blue, Akira waxa ka lumay xiisaha nolosha. Waxa uu ku riyoon jiray riyooyin xunxun sida isaga oo dhagaxaanta Chesto ay dilayaan, riyooyinkaas oo aakhirkii isku bedelay dhalanteed, kadibna miyirkiisa ka dhigay mid xanuunsan. Waxa uu had iyo jeer noloshiisa barbardhigi jiray ciyaarta shaxda, xaaskiisuna waxa ay uga dhignayd boqoradiisii. Marka laga badiyo ciyaarta, waxa uu ka tegayay boqoradiisa isaga oo aaminsan inuusan u qalmin. Akira waxa uu uga warramay dhakhtarka dhacdadii Chester iyo dilkii uu arkay, isagoo u sheegay in laga yaabo inuu u baahan yahay dhakhtarka maskaxda. Dhakhtarku waxa uu u qaatay inuu ku riyooday ninka la dilayo, laakiin Akira waxa uu ku adkaystay wixii uu arkay inay run ahaayeen. Dhakhtarku waxa uu ka codsanayaa inuu guriga aado oo uu nasto, sababtoo ah maskaxdiisu weli way isku buuqsan tahay. Intaa kadib, printerkii yaallay qolka dhakhtarka ayaa iskii u daabacaya warqad, taasoo ay ku qoran tahay waa maxay godka xiga ee aad ka guuraysaa. Akira waxa uu xaqiirsanayaa in ciyaartii Chester ee saaka bilaabatay ay weli socoto, wuxuuna ku qaylinayaa inuu doonayo in faraskiisa ama bawnkiisa loo raro booska E3. Kadib dhakhtarku waxa uu furayaa buug isaga oo arkaya in page-ka buugu ay isku bedeleen sawirkii shaxda. Printerkii ayaa warqad kale daabacaya oo odhanaysa odaygii ayaa ciyaaray markiisa, oo boqoradii odayga ayaa dishay faraskii Akira. Isla marka laga cuno faraskiisa, dhakhtarkii Tomoda ayaa isna dhiig soo tufaya oo isla markiiba dhimanaya. Akira oo naxsan ayaa waxa uu arkayaa sawirkii dhakhtarka oo uu ku dul sawiran yahay faras oo derbiga ku dhajisan, taasoo la macno ah inuu dhakhtarku ahaa faraskiisii. Sidoo kale waxa uu arkayaa koobkii uu shaaha ku cabayay dhakhtarku in ay ku sawiran tahay shaxda Chesto. Marka Akira waxa uu u qaadanayaa in shaaha loogu soo daray sun. Kalkaalisada ayaa ka soo daawanaysa albaabka, laakiin iskuma dayeyso in ay badbaadiso dhakhtarka. Waxa ay soo gelaysaa oo keliya marka uu dhinto, waxayna weydiinaysaa Akira waxa ay tahay tallaabadiisa xigta. Akira ayaa bannaanka u soo cararaya isagoo cabsi la gariiraya, wuxuuna la kulmayaa ilmo yar oo sita warqada uu ku sawiran yahay chessboard oo muujinaysa halka ay maraysa ciyaartu. Waana iska caddahay inuu sidoo kale kan yarina ciyaarta ku lug leeyahay, wuxuuna weydiinayaa Akira isla su'aashii ahayd godka xiga ee uu rabo inuu ka guuro. Akira waxa uu ku jawaabay inuu rabo inuu boqorkiisa u raro booska E2. Kii yaraana waxa uu u sheegayaa inuu boqorku uu sidaas ku dhiman doono markaa, isagoo Akira u cararaya dhinaca kale, isaga oo dib u soo xasuusanaya dadkii ku dhintay ciyaarta dhaqaajintiisa darteed. Waxaana u sawirmaysa midhaha Chester oo raba inay isaga dilaan. Sida uu u sii ordayo waxa uu soo gaarayaa goob baabuurta la dhigto oo parking ah, oo ay baabuurtu u taagan yihiin sida shaxda oo loo yaqaano chessboard. Isaga oo aan u fiirsanaya waxa uu fuulayaa baabuur u muuqda inuu yahay dhagaxa bishopka loo yaqaano ama hogaamiyaha shaxda. Marka uu isku dayo inuu istaarana, waa uu istaarmi waayayaa, balse gaadhigii ayaa iskii isku riixaya dhanka barbarka sida Chester oo kale. Akira waa uu ka degayaa gaariga oo waxa uu arkayaa in ay baabuurtu u taallo si saf ah sida shaxda oo kale, wuxuuna fuulayaa gaari ku beegan godkii uu jeclaan lahaa inuu raro shaxda. Laakiin baabuurka ayaa u dhaqaaqi waayaya, sababta oo ah ciyaartu waa tookadii odayga. Balse markii uu odaygu soo raro godka loo yaqaano rookaha ama qasriga, gaarigii isaga ku beegnaa ayaa isna ku dhacaya baabuurkiisa, kaasoo burburinaya rookaha Akira ama qasrigiisa oo hadda ah gaarigiisa, isaga oo dirqi kaga badbaadaya. Intaas kadib, Akira waxa uu aadayaa gurigiisii hore, balse waxa uu arkayaa in la xaraashayo oo la iibinayo, waayo dhagaxii rookaha ee laga dilay waxa uu ka dhigan yahay qasrigiisa nolosha dhabta ah. Hadda Akira waxa uu si fiican u fahmay sida ay u socoto iyo habka ay u dhigan tahay shaxdan Chester nolosha caadiga ah. Waxa uu ogaanayaa in boqoraduna ay tahay xaaskiisa Kumi, oo ay nolosheeduna khatar ku jirto. Waxa uu ku noqonayaa gurigii odayga isagoo u sheegaya inuu ciyaarta ka baxay oo uu ka rabo inuu joojiyo. Sidoo kale waxa uu ka codsanayaa inuu xaaskiisa ku soo wareejiyo. Si kastaba ha ahaatee, odaygii ayaa isna ka dalbanaya Akira inuu isna uu aqbalo guuldarradiisa oo uu qirto in laga badiyey, oo uu tuuro boqorkiisa si ay ciyaartu u soo afjaranto. Tani waxa ay mar kale soo xasuusinaysaa Akira waqtigii la bahdilay ee uu kombiyuutarkii Super Blue ka badiyey, wuxuuna go'aansanayaa inuu sii wado ciyaarta oo waxa uu odayga ka codsanayaa inuu hore u soo dhaqaajiyo boqorkiisa. Ciyaartu waa ay sii soconaysaa waqti dheer iyadoo qaybo badan oo dhagaxaantooda ah ay iska dilayaan. Ugu dambeyntii Akira, isagoo ay guusha ciyaartu u jirto 2 tallaabo oo keliya, odayguna uu garan la'yahay waxa uu sameeyo si uu u badbaadiyo boqorkiisa, ayaa waxaa soo baxaya 2 nin oo ku labisan suud, kuwaas oo si xoog ah u kaxaynaya Akira. Muuqaalka xiga waxaa layna tusayaa odaygii iyo Akira oo ku sugan meel garoon ah oo u samaysan qaabka chessboardka oo real life ah. Chester dhexdeedana waxaa taagan dadkii oo matalaya, kuwaas oo dhimanaya haddii god keliya si khaldan loo raro.
odaygu waxa uu u sheegayaa Akira in ay xaaladoodu la mid tahay boqor carbeed oo maxaabiistiisa la ciyaari jiray ciyaarta Chester, isagoo isla goobtana ku dili jiray, isagoo u sheegi jiray in shaxdu noqonayso ciyaar aan xiiso lahayn haddii qofka ciyaaraya aanu waxba ku waayeynin mararka qaarkood si uu u guulaysto. Hadda si uu Akira ugu guulaysto ciyaarta, waa inuu dagaalgeliyihiisa ama xajarka loo yaqaano knight uu u dhaqaajiyo dhanka odayga. Si kastaba ha ahaatee, haddii uu sidaas sameeyana, odaygu waxa uu dili doonaa boqoradiisa. Akira ayaa gadaal u soo jeesanaya isagoo arkaya in ay boqoradu dhab ahaantii tahay xaaskiisii Kumi oo meel ku xidhan, iyada oo lagu hayo mindi, ilmaduna indhaheeda ka daadanayso. Madaxa ayay u ruxaysaa iyada oo ka codsanaysa Akira inuu badbaadiyo. Hadda Akira waa uu ku guulaysan karaa ciyaarta, laakiin waxa uu waayayaa xaaskiisa. Waxa uu isku dayay inuu istaago si uu odayga uga joojiyo, balse nin hubaysan ayaa soo tooganaya oo ku dhufanaya xabad meel u dhow lugihiisa, isagoo uga digaya haddii uu isdhaqaajiyo inuu dhiman doono. Odaygii ayaa markii u dambeysay kala dooransiinaya in uu boqoradiisa huro oo la dilo, ciyaartana badiyo, ama inuu aqbalo guuldarradiisa oo boqorada badbaadiyo isaguna dhinto, isaga oo intaas ku daraya in qofka horyaalnimada haysta looga baahan yahay inuu si caqli badan uga fikiro sidii uu ciyaarta u badin lahaa. Laakiin Akira ayaa si aan shaki ku jirin uga dalbanaya in ay boqorada badbaadiyaan, waayo xaaskiisa ayaa isaga uga muhiimsan inuu ciyaar ku guulaysto ama noolaado. Isaga oo qof kasta la yaaban go'aankiisa ayaa waxa uu u soo dhaqaaqayaa dhanka xaaskiisa, isaga oo gacmihiisa kala bixinaya, isaga oo aqbalay guuldarradiisii ciyaarta. Ninka matalaya inuu yahay xajarka knight-ka odayga ayaa xaggiisa u soo dhaqaaqaya oo isagana midi gelinaya, wuxuuna ku dhacayaa dhulka. Kadib marka uu dhinto, odaygii oo dhoolla cadaynaya ayaa u sacabtumaya oo u hambalyeynaya. Intaas kadib, xaaskiisii Kumi ayaa gacmaha laga furaya oo iyana dhoolla cadaynaysa, iyada oo eegaysa ninkeeda oo dhulka jiifa, taas oo muujinaysa in ay ku faraxsan tahay sida ay wax u dhaceen. Waxaa intaas ka sii yaab badan ninkii ku dhintay wareeggii koowaad ee ciyaarta, dhakhtarkii Tomoda, kalkaalisadii iyo cid kasta uu Akira kula kulmay intii ay ciyaartu socotay ayaa mar kaliya imanaya goobta, iyaga oo u sacabtumaya. Kadib Akira ayaa ka kacaya dhulka isagoo isweydiinaya sababta uu xanuun u dareemi waayey, waxaana la inoo muujinayaa in mididii lagu taagayba ay ahayd mid fayg ah oo been abuura. Kadib waxaa daaha laynooga qaadayaa in ay ciyaartuba ahayd farsamo loogu talagalay in Akira looga saaro xaaladda niyad-jabka ah oo looga dhigo inuu mar kale ciyaaro shaxda Chester, waayo waxa uu ku jiray xaalad maskaxeed oo aad u xun tan iyo markii laga badiyey ciyaartii u dambeysay ee kombiyuutarka. Markaas si looga caawiyo inuu soo raysto, dhakhtarkiisii Tomoda, xaaskiisii Kumi iyo odaygan la ciyaarayay ayaa soo agaasimay ciyaartan oo dhan, iyaga oo ugu talagalay inay show kaga dhigaan oo kaga nixiyaan, taasoo ah mid ka mid a qaababka dadka niyad-jabsan lagu daweeyo. Odayganina dhab ahaantii waa qofkii ikhtiraacay kombiyuutarkii Super Blue ee Akira hore uga badiyey, runtiina kumuu faraxsanayn in uu kombiyuutarkii uu alifay uu saamayn xun ku yeeshay ciyaartoy Chester ah oo heer caalami ah sida Akira oo kale, ciyaartana ka joojiyo. Markaasi uu u saxo khaladaadkiisaas, waxa uu abaabulay oo maalgeliyey ciyaartan. Wakhtigii ay ciyaartu socotay oo dhanna, Akira waxa uu la ciyaarayay isla kombiyuutarkii Super Blue, kaas oo jawaabaha odayga ugu soo gudbinayay sameecaddii dhegta ugu xidhnayd. Odayguna waxa uu mar kale daaha ka qaadayaa in kombiyuutarku aanu fahmi karin tallaabadii nafurnimada ahayd ee uu sameeyey Akira si uu u badbaadiyo xaaskiisa, taas oo sababtay inuu kombiyuutarkii khalkhalo oo istaago, taas oo la macno ah inuu ugu dambayntii Akira ka guulaystay ciyaartii uu la dheelayay kombiyuutarka Super Blue. Filimkuna waxa uu ku dhammaanayaa iyadoo Akira iyo xaaskiisu ay laabta isgelinayaan, dhammaan dadkii oo dhammina ay u sacabinayaan. Fadlan nagu soo biir oo subscribe taabo si aad ula socoto muuqaallo kale oo badan oo sidan oo kale ah. Beelkana furo si aad ugu noqoto dadka ugu horreeya ee ay soo gaaraan muuqaaladu. Sidoo kale muuqaalkanna like u dhaaf si aad nooga caawiso inuu kanaalku sii faafo.